qaar ka mid ah dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Caabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galguduud ayaa ka cabanaya qaadka oo dhanka Itoobiya ka imaanaya xilli Soomaaliya laga mamnuucay in qaadku soo galo xanuunka coronavirus cabsi laga qabo awgeed. dhalinyarada magaalada ayaa bilaabay inay dadka wacyigeliyaan oo ka waaniyaan keenitaanka qaadka. Xamdi Mire Aadan waa gudoomiye ku-xigeenka urur ay ku midaysan yihiin dhalinyarada ku nool degmadaasi. Radio Ergo ayaa arrintaasi uga warantay wariyaheenna Cismaan Madaale oo Cadaada jooga ayaa wareystay. Caabudwaaq xilligan hadda la joogo waxay ka cabanayaan cudurkan daashaday dhammaan dunida caalamka meel walba saameeyay ee coronavirus kaasoo ognahay saameyntiisa gobolka gobol qaarad degmo tuulo ilaa dhammaan meel walba caalamka uu jooga saameeyay soo guri walba xaafad walba reer walba madax minjo meel aan kala qaybin ayay ka cabanayaan waayo dumar Soomaali soo galay kiisas ilaa 5 gaaraya laga xaqiijiyo waxba ma jirto Caabudwaaq inuu ayagana soo gaaro ilaahay ayaan ka magangalnay laakiin Caabudwaaq waxay uga sii nugashay dhammaan Soomaali meel walba waxay xuduud la leedahay Itoobiya waana meesha ugu dhow uga nugushahay maanta oo cudurku uu ka soo halay in cabasho bulshada ay muuqato waxa keenaya waa meeshan sababta iyo waxa laga cabanayana waa cudurkan runtii aan anagu u babacdhigi jirin aan lahayn xarumo hooyin kara ilaa intaas qof hortag badan maanta Soomaaliya ka jirin oo jirin ognahay tabarteen. marka sababta cabashadan keentay hadda noo faahfaahaysan maxay tahay? runtii horta cabashadan way jirtay oo dhammaan Soomaali meel walba joogto way cabanayaan oo waxay leeyihiin laga soo gaaro sidoo kale markuu bilaabay cabashada waan diinay ayna anagu deganay xuduudkii si gaaran isha loogu hayo laakiin hadda waxaa sii daran oo cabashada sii bilaariyay anaguna qaadka Soomaaliya uga imaanay in la joojiyay meelo badan lagu arkayna la gubay laakiin Caabudwaaq haddii laga joojiyay Kenya waxaa si toos ah u imaanay Itoobiya oo lagu keenayo gaari lagu keenayo oo aan waxba isku jirna kiiloomitir isku marka sababta uu cabanayaan ayaa waxa ay tahay qaadkii ayaa wuxuu ka imaanaya Itoobiya waliba nooca xiriiriga la dhahay marka si fudud buu ku soo galiyaa Itoobiyana kiisas ayadana laga xaqiijiyay marka waxba uma jirto maadaama cudurkan neefta iyo taabashada uu aad ugu fido waxba uma jirto marka xiriiriga masaawada soo gal inuu ku faafo waana sababta uu cabanayaan dhammaan bulshooyinka ku nool degmada Caabudwaaq iyo Boosmaan. marka qaadkan inuu magaalada Caabudwaaq soo galay shacabku maxay ku xaqiijin karaan? shacabku horta isha macalina shacabku waxay ku xaqiijin karaan way ka hadleen muuqaala laga duubay waxay ku xaqiijin karaan goobihii siyaala hore oo oli jira qaadku meheradihii meel dadkii baa cunaya marka wax qarsoon ma aan runtii soo dhiibay wixii oran waa markaas madoon waa loo wada marka xaqiijinka lama baahna isha ayaan qalin ma la og yahay cidda qaadka keenta magaalada Caabudwaaq hadda? xilligan si saxda laguma tilmaami karo qof gaar ah waayo hore uu imaan jiray isla dadkii uu imaan jiray hadana talab sameeyay uu imaanaya ka imaanayna way soo diyaar marka qofka dadku Itoobiya uu ka fiirsado korkii uu imaanay oo lug iyo gaari iyo waa kuwana tuulooyinka dhan baa ku xiraysan waxa ku xiraysan dhammaan deegaanada marka qof walba uu ugu shahay inuu inta tago oo jaarta soo rarto. marka dadka Caabudwaaq cabsida ay qabaan intee la agtaa? cabsi aad balaaran bay qabaan cabsidaasna hore markuu soo yahay xanuunka way qabin waayo ayaga u tigay Soomaalida meel walba joogtay uga doonayeen ayaga ayaa u dhow xuduudkiina runtii haddii Itoobiya kees laga xaqiijiyo Soomaaliya way kaga dhownahay waana kaga nugulnahay waayo keeska Soomaaliya laga xaqiijiyo waxa laga yaabaa markay meesha xuduudaha nagu furan tahay oo la isku socdaalayo oo dadkii ku bulshooyin ganacsi wax walba dhex marayaan way nugushahay cabsida ay qabi karaanna waxay tahay inay dhammaan Soomaali dagal bay ay kaga nugul yihiin sababtuna waxay tahay xuduud ay leeyihiin oo kiiloomitro wax ay u jiraan kii soo lugayso soo imaan moona control saxana ma jiri karo oo maanta awoodiisa control ay dhigi karaan cudurku intaas ayuu joogaa ama ku xakameyn cabsida u dharaamida. marka qaadku awal hore miyuu uga imaan jiray Itoobiya mase waxa fududeysay qaadka Kenya ee la joojiyay ayaa halkan laga soo iibgeeyay markaas? qaadku si bulshada wuxuu imaan jiray Kenya ayuu ka imaan jiray walaal ognahay in mararka qaar deegaanadaas la geyn jiray Kenya ka imaan marka ma badnayn xooggiisu wuxuu ka imaan jiray Kenya
laakiin ma badnayn jaadka ka imaadalka maadaama hadda ay xirmatayna jaadkooda suuq ayuu u yeeshay waayo filamta yar lagu jira jaadka imaanayana waa laga marka ma badnayn laakiin hadda ayuu suuq fiican yahay shacabka ku nool magaalada Caabudwaaq cabsida ay muujinayaan markay la fiirsho ma sameeyaan hortag ay isku dayayaan inay qaadkan iska joojiyaan dhammaan shacabka Caabudwaaq ay sameeyeen anaga ka dhalinyarahan xataa waan samaynay maalinka kow Soomaaliya lagu xaqiijiyay qaadkiis oo la sheegay ayaan sameeyay in anaga si ilgaarna loogu hayo dhalinyarada aan ognahay meesha guudka inaan deganay codsadana way badan yihiin idaacadaha laga hadlayo telefishinada nooc walba ayaa loo gudbiyaa way gudbiyeen Caabudwaaq ku aadan cudurka iyo in xuduudan la xiro inta cudurkan loo helayo xal waara ma yara codsiyadu way badan yihiin iyo dalbashada lagu dalbanayo in hortag buuxda loogu sameeyo bulshooyinka degan degmada Caabudwaaq habeenii maalin lagu taagay xamdi mire aadan oo dhalinyarada Caabudwaaq ka mid ah ayay taasi ahayd waxay u warhamaysay wariyaheena Cismaan Madaale oo Cadaado ku sugan